ururka haweenka gargaar oo ay ku midoobeen haweenka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle isla markaana taakuleeya dadka danta yar agoomaha iyo waayeelka ayaa deeq lacageed oo dhan 3300 oo dollar ku wareejiyay guddi culimaadiin ah oo gobolka Sool ka wada ololaha taakuleynta bulshada reer Beledweyne ee fatahaada webigu saameynta xooggan ku yeeshay ugu horeyntiina waxa hadalka iskaga dambeeyay Faaduma Cabdinuur Xaashi Maryan Dirir Jaamac iyo Caasha Cali Shire iyagoo si wada jira deeqdan lacageed ugu wareejiyay guddida culimaadiinta ah bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay waxaan rabnaa inaanu halkan ku wareejino annaga oo ah ururka agoomaha gargaar dariiqa jannada fatahaadii Beledweyne sadaqo aan ugu talagalnay lacag dhan 3300 dollar ayaan ku wareejinaynaa culimada magaalada Laascaanood gobolka Sool guddiga taakulada fatahaada waxaan ku wareejinaynaa Sheekh Aadan Weli ayaan ku wareejinaynaa lacagta culimadii kalena waa diyaar alxamdulillaah rabbil caalamiin mahad iskale isugu keenay goobtan aynu khayrka isugu nimi inagoo wareejinaynay lacag ay soo ururiyeen waa diyaar alxamdulillaah rabbil caalamiin GMG halkan waxaanu ku guddoonsiinay wadaadadii gurmadka goobiga fatahaada Beledweyne gurmadka degdega ah lacag ay u soo ururiyeen gabdhaha khayrka qaba 3300 dollar ma sha Allah Allah barakeeyo gargaar GMG wakiilka gobolka Sool ee ugu wareejinay sadaqada 3300 ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa wax ku badan ilaahay inuu siiyo sidoo kale Sheekh Aadan Weli oo deeqdan lacageed si rasmi ah lagu wareejiyay isla markaana ay garab taagnaayeen xubno ka mid ah guddida taakuleynta ayaa u mahad celiyay una duceeyay ururka haweenka gargaar GMG sidaad arkaysaanba insha Allah taala waxaanu ka guddoonay gabdhaha ururka gargaar lacag dhan 3300 lacagtaas oo gabdhuhu ay ugu tala galeen gargaarka loogu gurmanayo fatahaada webiyada Beledweyne ilaahay waxaan uga baryaynaa gabdhaha soo ururiyay lacagta kuwa ka shaqeynaya si gaar ah ilaahay khayr uu siiyo kuwa soo ururiyayna ilaahay keenay lacagtana Allah khayr ha ugu bedelo dhamaantood ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu ugu dambi dhaafo aakhiro adduunyadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantidooda ay bixiyeen ilaahay waxaan uga baryaynaa mid aan ka dhamaan weligood iyaga iyo xaruurtooda iyo dhaxalkooda baan ka dhamaan ilaahay ha uga dhigo naftooda iyo ehelkooda ilaahay ha ku dhowro subxaanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha fi dilli sadaqatim kuwa harsada sadaqadooda Allah ha ka dhigo ilaahayna muslimiinta wuxuu farayaa wa tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala alithmi walcudwan waxa Allah leeyahay subxaanahu wa ta'ala ilaah ka baqay wanaaga isugu kaalmeeya cadawtinimada ha isugu kaalmeynina إلهنا سبحانه وتعالى أضبو أمانة يا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الله وحليه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما تدكو أحبضنا أي سمين يان وكفا غيان خيركم يجروا اسكسر أي سنيان إلا مدد كفر يصدقوا يا معروف يددك إصلاح لحدي سأمويان مركز الله وضبطك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما قفكي وبحية إلهي درتي أرمها ما إلهي درتي أسمية الله وحليه أبا المريم وين بانسين دونا أبا المريم تحت إلهي مشي سبحانه وتعالى ولبان أحمد عيسى لبان قرن سمني استيفي لا سعنود